laga soo bilaabo sanadkii 2017 ilaa hadda waxaa caalamka aad iyo aad u sii qabsanaya gameka caanka ah ay boqolaalka milyan oo qof ay dheelaan kaasoo lagu magacaabo PUBG kaas oo ay Soomaalidu u taqaano Babajey. Babajey ama PUBG waa mid ka mid ah geemamka adduunka ugu caansan uguna dheel badan xagga dheelista. Xitaa waxaa laga dheelaa wadamada caalamka oo dhan. Xitaa waxaa laga yaabaa haddii aadan dheelin ama aadan xiiseynin ugu yaraan waad maqashay magaca PUBG. Ma taqaanaa maskaxda ka dambaysa gamekaas oo ay dheelayaan boqolaalka milyan oo qof? Weligaa ma isweydiisay maskaxda keentay iyo sida loogu fikiray? Ma rumaysan lahayd haddii aan ku iraah gameka PUBG oo ay dheelaan 100 milyan oo qof iyo in ka sii badanba waxa keenay nin ay ka tageen xaaskiisii iyo asxaabtiisa xitaa gurigiisa ka soo tagay guuldaradiisa awgeed. Markaan guuldaro ku leeyahay waxaan ula jeedaa guuldaro maaliyadeed. Macnaha dhaqaale ma uusan haysan, xaaskiisii way ka tagtay, qol ijaar ah buu ku jiray. Halkan maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa qisada guusha Brandon Green, aasaasaha PUBG. Magacay wax maqadar halkaad iga daawanaysidna waa Hadda Media. Ku soo dhawaada muuqaalka. Brandon Green, aasaasaha shirkadda amase gameka caanka ah ee PUBG. waa 40 jir Irish ah, wuxuuna dhashay sanadii 1980 wuxuuna ku dhashay wadanka Ireland. guuldaradiisa awgeed waxaa ka tagtay xaaskiisa ugu horeyntii, waxaana sidoo kale ku soo xigay asxaabtiisa qaaska ah kuwaasoo markii dambe ay u waayeen lacag ay deemiyaan kadib markii uu ka badbadshay yirina mar walba lacag ayaan u baahanahay. Brandon Green, aasaasaha gameka PUBG, waxa uu jaamacadda ka qalin jabiyay sanadii 1998 isagoo ka baxay kuliyadda waxa la yiraahdo jilaanimada, taasoo markii dambe keentay inuu ku fashilmo xirfadiisii jilaanimo. Balse Brandon Green ma uusan fadhiisan, dadaalkiisiina hore ayuu u sii waday. Brandon Green, aasaasaha gameka PUBG, waxa uu isku dayay inuu ka shaqeeyo waxyaalaha software engineering-ka ama sida loo horumariyo software developing-ka, website developing-ka. Brandon Green oo isku dayaya markaas isna dhahaya meeshan waxaad ka keeni doontaa, waxa ku soo xigay in ay ka tagaan asxaabtiisii isaga u soo dhawaa kadib guuldaradiisa awgeed. Brandon Green ma uusan fadhiisanin, waxa uu mar kale isku dayay inuu qabsado howlo kale haddii uu ku fashilmay dhanka fanka ama dhanka jilaanimada, sidoo kalena haddii uu ku soo fashilmay dhanka website developing-ka. waxa uu markaan diiradda saaray in uu noqdo muusigista caan ah oo laga daba dhacay. waxa uu isku dayay in uu meelaha baarka ah muusigada aad iyo aad uga tumo si markaasi xitaa uga helo mushaarkiisii maalinlaha ahaa. Brandon Green, aasaasaha gameka PUBG, hadda waxaa lagu qiyaasaa lacagtiisa billaha oo kaliya in ay tahay kaliya bishi soo gasho 2020 billaha lacagta la xisaabshay 300 milyan bil kasta inay soo gasho. haddaba maxaad ku qiyaasi lahayd sanadkii? waa lacag aad iyo aad u fara badan. guushu waxa ay ka bilaabataa bartanka dhibaatada. Brandon Green ma uusan sii fadhiisanin, haddana waxa uu ku guuldaraystay in uu noqdo muusigista caan ah. balse Brandon Green oo ah aasaasaha gameka PUBG waa uu ka soo tagay Ireland waxa uuna imaa wadanka Brazil, kaasoo uu islahaa haddii guuldaradaadu ay ku badato wadanka Ireland wax ayaad iskaga bedeli doontaa wadanka Brazil. Brandon Green waxa uu isku dayay in uu meeshaas ka noqdo heesaa, balse xirfadiisii heesaanimo mar kale waa uu ku fashilmay. Brandon Green waxa soo laalaabatay guuldaradiisii aadka u badneed, ha ahaato dhan dhaqaale, maaliyadda iyo xitaa xirfadiisii qaaska uu ku waayay. Brandon Green waa uu iska quustay, waxa uuna is yiri
markii ay soo laalaabatay guuldaradiisii. Tani xal kuma noqotee Cavalieri iska noqo. Maxaa yeelay qofka haddii uusan meel walba uu kaga fashilmo, waxaa maskaxdiisa ka guuxaya waxyaalo aad iyo aad u badan. Tusaale ahaan, haddii aad ku fashilanto dhanka iyo qoraanimada oo aad qoraa u tartamaysay, mar kale ku fashilanto, mar saddexaad ku fashilanto, lisma dhigo. Balse ninkan Brandon Green ah isma uusan dhigin, waxa uuna mar kale isku dayay in uu fikradiisii nololeedkeed in uu wax iska bedelo. Brandon Green oo markaasi dheeli jiray game markaasi Soomaalidu ay u taqaano CJ, xaggaasna looga yaqaano Rocky game oo geemamka dhalada lagu ciyaara ayaa waxa uga soo baxday fikrad noloshiisa wax badan ka bedesha, kaasoo ahayd gameka PUBG. Waxa uu is yiri gamekan PUBG waa gamekan oo Rocky gameka waa in wax badan laga bedelaa, wax badanna lagu soo daraa si markaasi uu u noqdo game dhammaystiran. Markaasi waxa uu xirfadiisii geemnimo ula tagay shirkadda Blue Hole, shirkadda geemamka oo markii dambe qaadan doonto kana shaqeyn doono ilaa haddana uu ka shaqeeyo ayaa ula tagay. Kadibna way ku faraxday fikradiisii, waxa ayna u dirtay in ay maalgeliso. Directorkii iyo soo saarihiiba isaga ayaa ahaa Brandon Green. Brandon markii uu arintaasi maqlay aad iyo aad ayuu u farxay, maxaa yeelay fursad iyo dhiirigelin ayay taasi u ahayd. Waxa uuna u kaashaday gamekan Rocky awoodiisa si uu u soo saaro game aad iyo aad u fiican. Dheelidda gameka PUBG waa xeelad laga keenay film Chinese ah, kaasoo ka sheekeynayay ilmo basaaran oo la afduubanayo, kadibna dagaal ay sameynayaan jasiirad lagu afduubanayo. Filimkaas in aad fiirsateen maybe macquul. Filimkaasi ayaa intiisa badan laga keenay xabadaha iyo dagaalka. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aadan nagu soo biir oo taabo calaamada subscribe-ka, gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan mucaamalaad noocan oo kale ah. isma dhaafna iyo muuqaalka xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.